Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan waa qeybtii 6aad casharadii taxanaha noo ahaa dhowaan. Marka waxa uu ku bilaabanayaa sida tan. Marka waxa wada hadlaya laba qof. Waxaan isticmaalaynaa A iyo B. Waxaa hadalka bilaabaya B. Waxay tiri hey Jane. Haye Jane ama salaam oo kale ay la mid tahay marka waxa dhahnay waa hey ama hi ay raade tan waa hadda hi laakiin hi iyo hey iyo hello antaba waa isku meeshii marka marka wuxuu yiri oh hey Jill marka waxa u muuqata laba gabdhood wada hadlaya sida magacooda ka muuqata oh hey Jill ayuu marka ohdan marka waxaan dhahnay waa hadal qabsi marka ma ahan wax macno guud ah kala ma sameynayso laakiin waa hadal qabsi marka waxa uu yiri marka hey Jill haye Jill marka waa gabar magaceeda marka what are you doing ay tiri marka maxaad qabanaysaa markii aad weydiinayso qof wax uu qabanayo ayaa waxaad leedahay what are you doing maxaad qabanaysaa marka waxay tiri I am doing the laundry waxay tiri waxaan dhaqayaa dharka marka the laundry waxa la yiraahdaa dharka dhaqista ama meesha goobta dharka lagu dhaqo ayaa la yiraahdaa marka mar waxay noqotaa anay goobta dharka lagu dhaqo sidoo kale waa dhar dhaqis marka ficil iyo magac way noqonaysaa marka I'm so bored ay tiri marka I'm so bored aad baan u caajisay soodan waxaan dhahnay very oo kale ugu jirto hadda aad baan u caajisay I have nothing to do waxaan qabto ma laha marka waxay tiri marka I'm so bored aad baan u daalay I don't have I have nothing to do marka waxaan qabto ma laha marka wuxuu yiri why don't you come over and help me with the laundry why don't you come over marka maxaad ugu soo tagweysay marka maxaad ugu soo tagweysay ama maxaadan ugu soo tagayn waa marka why don't you come over maxaadan ugu soo tagaynin yani qolka ama meesha aad joogtid maadaama aad caajistay and help me with the laundry isla markaasna aadan igu caawinaynin marka waxay tiri dhaqista dharka marka and help me aadan ii caawinayno marka with the laundry dharka marka ama dharka dhaqista maxaadan igu caawinayn bay tiri marka maadaama aad caajistay waxay ugu jawaabtay I would rather do my own house chores waxay tiri marka I would rather do my own house chores waxay tiri maba sameeyo xitaa kuwayga marka guri chores waxaan dhahnay waa shaqada guriga laga qabto marka waxay tiri marka xataa kuwaygii ma aan qaban bay tiri marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay sidaan kula qabto marka kuway maadaama aan qabanin marka I would rather do my own house chores marka kuway xataa ma aan qabanin waa marka hey bay sii raacisay haye bay sii raacisay marka you wanna take a break from your house doonaysaa marka inaad ka qaadato you wanna take a break from your house work waxay tiri marka ma doonaysaa inaad break ka qaadato break waxaan dhahnay waa markii shaqada aad haysid waqti aad ka qaadanaysa marka waqti nasasho ah oo gaaban ah sida u fogeyn marka aad ka qaadanayso way marka waxay leedahay marka you wanna take a break from your housework ma doonaysaa shaqadaada inaad ka qaadato break yar ama nasasho yar inaad ka qaadato and have coffee at Starbucks with me marka waxay tagan tahay ma doonaysaa inaad shaqadaada break yar aad ka qaadato shaqada guriga ay ula jeedaa isla markaasna have a coffee yani cafe aan iskula soo cabno marka at Starbucks with me marka Starbucks waxa la yiraahdaa meel cafe ayaa la yiraahdaa marka ama shirkad cafe ah shirkad iibisa kafeega ayaa la yiraahdaa marka waxay ugu jawaabtay sure waxay tiri sure marka waxa weeye hubaal marka xaqiiqadii ama hubaashii that sound is great arintaasi marka waxay u muuqataa marka mid wanaagsan ay u muuqataa marka arintaas waxay u muuqataa marka mid wanaagsan I would meet you there waxaan kugula kulmi doonaa marka ama aan ku kulmi doonaa there halka marka in 30 minutes
soddon daqiiqo gudahooda marka in 30 minutes waxaan dhahnay waa soddon daqiiqo gudahooda halkaas ayaan kugu kulmi doonaa bay taagantahay marka eryaashii ugu muhiimsanaana waxaa ka mid ah laundry oo aan dhahnay waa dhaqista dharka sidoo kalena waxay noqotaa goobta dharka lagu dhaqo ayay noqotaa marka laakiin hadda waxay ugu jirtaa dharka dhaqistiisa ayay ugu jirtaa marka help waxaa dhahnay waa caawimaad ama qof aad caawinayso my own waxa weeye wixiiga marka wixii aad leedahay ayaa my own la yiraahdaa sidoo kale take a break waxaan dhahnay waa waqti qaadasho gaaban waqtiga gaaban marka shaqada gudaheeda ku guda jirto waqtiga yar ee la qaato ayaa la yiraahdaa marka a break marka tani waa take a break waxa weeye marka waqti qaadasho ama break yar qaadasho ama nasasho qaadasho ayaa la dhihi karaa marka chores waxaan dhahnay waa shaqada guriga houseworkna isla waa iyadii oo nooc kale ah marka housework waxaan dhahnay iyadana waa shaqada guriga choresna waa shaqada guriga marka intoodba waa isku mid marka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa casharkii lixaad wada hadallada luqadda ingiriisiga